Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam walaalaha qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Soo dhawaada janalkeyga. Halkaad igala socotaan waa Fahiima Janal. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Asxaabay, maanta waxaa idin wadaa qiso xanuun badan oo ku dhacday gabar lagu magacaabo Luul oo ka mid ah walaalaha janalkeyga ku xiran. Luul oo qisadeeda iiga sheekayso waxa ay ku bilowday sida tan. Waxa ay tiri waxaan la noolaa hooyaday. Aabahayga waxa uu lahaa xaas kale. Markaa aabahaygii hooyadeed waxay dhahday mar dhow ayay kala tageen yaraanteedii, laakiin waa isla joogeen bay dhahdo oo waxa soo wada koriyay hooyaday iyo aabahay. Waxay dhahday hooyadeyda aniga markaan soo weynaado waxa ay ii soo bandhigtay in ay Sacuudiga ii dhoofiso si markaasi reerka biilkooda iyo markaas waxyaabaha ay u baahan yihiin aan uga taakuleeyo ama aan uga caawiyo. Hooyadeeda markii ay ii soo bandhigtay in ay Sacuudiga ii dhoofiso waan ka ogolaaday bay dhahday, kama diidinin. Runtii waxay dhahday waxay hooyadeeda isku dayday inay markaasi sidii aan kusoo tahriibi lahaa ay sameyso. Tahriib kadib, dadaal badan kadib, wixii daal iyo rafaad aan soo maraba waxaan imaaday bay dhahday Sacuudiga. Bilihii ugu horeeyay iyo sanadadii ugu horeysay waxaan isku dayay inaan hooyaday caawiyo, taakuleeyo, aan garab istaaga bay dhahday. Waqtigaas aan Sacuudiga imaanay hooyaday iyo aabahay islama nooleenin oo aabahay hooyaday way kala tageen. Aabahana xaas kale ayuu guursaday bay dhahday. Marka hooyadeeda oo la daala dhaceysa duruufaha guriga iyo korinta caruur iga yaryar ayaan aad u jeclaa inaan taakuleeyo. Intaas kadib waxay dhahday waxaa isbaranay wiil jooga South Africa. Wiilkaas waxay tiri waxaan u maleynayay wiil fiican oo runtii nafsadeyda ay ka heshay aan ku qancay bay dhahday. Markastana waxay dhahday sidii waxay u sheekeysan jirnay xaas iyo ninkeeda oo kaleeto, yacni nin iyo marwadiisa oo kale ayaan u wada sheekeysan jirnay, sidaan isku baranay, isku fahanay, yacni isku aaminay darteed. Aaminaad dheer kadib waxay dhahday maalin maalmaha kamida muddo laga joogo 3 sano anigoo Sacuudiga ku nool, wiilkiina aan weli waxay dhahday xiriir wadaag aan nahay oo aan ku ballanay in aan isguursano, laakiin waqtiga aan isguursanayna uusan ahayn waqti cayiman ayaa waxay tiri hooyadeeda isoo wacday. Waxa ay igu tiri hooyo waxaan rabaa wiilka walaashay dhashay ee jooga wadanka Mareykanka in aan kuu guuriyo si uu kaaga kaxeeyo wadanka Sacuudiga oo aad u noqotid qof isku filan. Waxay dhahday hooyo waxaan ku dhahay waa hadal wanaagsan, laakiin hooyo ma ogtahay aniga inaan wiil aan saaxiibanah uu jiro, wiilkaas oo jooga South Africa isla markaasna aan rabo hooyo inaan isguursano. Waxay hooyaday ugu tiri hooyo aniga wiilka hadalkiisa ma rabo, wiilka walaashay dhasha ayaan kalsooni badan ku qabaa, wuuna kaa kaxeynayaa Sacuudiga oo wuxuu ku geynayaa Mareykanka. Sidaas darteed aniga hadal ha igu soo celin, waan kugu soo daalay, waan kugu soo rafaaday. Intaas maanta aan rabay in aad hadalkeyga qaadato ma ahan bay tiri hooyaday inaad igu soo celiso. Hooyaday hadalkeed baa waxay tiri waxaan sameeyay garan waaye. Ninkii baan wacay tiri aan jecel wadaaga ahaynay, waxaana u sheegay in maxaan ku dhahay hooyadeeda ii soo bandhigtay in wiil ah ilma habreednahay la igu daraayo ee maxaa tala ah. Ninkii waxa uu igu yiri bay tiri abaayo aniga waa tii aan ballanno oo aan guur ku ballannay, guurkeyga haddaad diidid dhib ma lahan, aniga muuqaalo aan kaa duubay ayaan hayaa oo aan soo gelin doonaa social media. Waa naxay bay tiri, waxaan ku dhahay bay tiri oo muuqaaladu maxay yihiin. Aniga waxay tiri ninka si wanaagsan baan u aaminay, marmarka qaar anigoo iska gabasaar wadan ama jalbaab ii xirneynin ayaan kaamirada kala hadli jiray. Runtii waxaa u haystay bay tiri sida ninkeygoo kale, sidii aan u aaminay oo aan iskugu wanaagsaneyn. Hal mar hadalla xun kuma arkin, kamana maleysanin bay tiri in uu muuqaal iyo waxyaabo noocaas camal iga duubayo video aniga markaasi timaheyga ay banaanka yaalaan ama qoorteeda ay muuqato, marnaba kaba maleysanin bay dhahday. Gabadhaas ninka oo ka duubo videoga ay sheegtay in timaheeda qayb kamid ay banaanka yaaleen ayaa ninka wuxuu uga caga jugleeyay in muuqaalkaasi uu banaanka soo dhigi doono oo fiidiyoyadii uu ka duubay uu soo gelin doono social mediaha, weliba Facebookiisa. Waxa ay igu tiri gabadha ii sheegtay wiilka wuxuu igu yiri haddii aad guurkeyga diidid Facebookeyga baan soo gelin doonaa muuqaalkaaga, waadna daawan doontaa, asxaabtaada oo dhanna waan ku teegaray doonaa. Waa naxay bay dhahday, waan maleysan waaye. War waxaan ku dhahay bay dhahday soo aniga adiga isma aaminin, maxay taa muuqaalkii wax ay iga duubto aad sheegaysid. Waxa uu igu yiri bay dhahday aniga hadal waan kuu dhameeyay,
diyaar ma u tahay inaan ku guursado. Haddii aadan u ahaynin oo ninka hooyadaa kuu doorta aad guursanaysid, diyaar u noqo inaad muuqaalkaagii ka daawatid facebooka. Naxtinta aan naxma malaysa kartid bay dhahday. Hooyadeed baan soo wac waxaan ku dhahabay dhahdo hooyo wiilka aa ila jeclaatay anigu ma raba mana doonayo ee ogow. Anigu ha igu tashan wiilka walaashaa dhashana u sheeg in aan guur diyaar u ahayn. Hooyadeed waxay igu tiri hadalkaaga inuusan soconayn ogow oo isbuuca soo socdaba nikaaxaaga ama meherkaaga uu dhici doono wiilkaasna aan kugu dari doono. Haddii aad diidid iyo haddii aad yeeshidba adigay kuu taalaa, laakiin isbuucan dhexdiisa uu meherkaaga dhici doono la soco. Runtii waxay dhahday waan sii naxay, waan malaysan waayey. Wiilkii baan isku dayay bay dhahday inaan waco isla markaasna aan ogaado waxa uu damacsan yahay iyo xumaatada uu la soo baxay. Laakiin waxay dhahday hal mar uu taleefanka iga qabto waxa uu igu yiri abaayo anigu ha isoo wicin, waan kuu sheegay keliya hadalkayga dhageyso oo waxaan ku iri haddii aad diyaar u tahay inaan isguursano soo dhawow, haddii aad diyaar u ahaynina nagu kala wad oo muuqaalkaagii ka daawo facebooka. Hadalkaas ayaa iigu dambeysay bay dhahday. Maalintii kadib taleefon waa uu iga qaban waayey. Waxaan isku dayay in aan waco wiil ay saaxiibo ahaayeen oo dukaanka ay iskala shaqayn jireen. Kadibna wiilkii waxa uu ii sheegay in saaxiibkiisa ay isla joogaan isla markaasna dukaanka ay iskala shaqaynayaan, laakiin sababta uu taleefanka uga qaban waayey uusan sheegi karin. Waxa ay dhahday gabadhan lagu magacaabo Luul ee hadda joogta Sacuudiga. Dhibaatadaas ayaa haysata walaalahayga. Ninkiina waxa uu igu caga jugleeyay in uu muuqaaladii iga duubo soo gelin doono Facebook iyo meel kasta oo social media laga isticmaalo. Hooyadeedana waxaan dhooma garanayo oo waxa ay igu leedahay hooyo haddii aadan wiilka habaryarta u hay kugu darin anigu iima noqonayso oo gabadheedu waxaan rabaa inaa iga dambeyso. Laba daran mid dooro ayaa haysata bay dhahday. Walaalayaal maxaan sameeyaa? Taladiina ayaan sugayaa. Gabadhan Luul lagu magacaabo walaalayaal taladiina ayay sugi doontaa. Waxa ayna qaybta commentiga ka akhrisan doontaa fariimihiina quruxda badan aad u soo diri doontaan. Waan idinkaga mahad celinayaa qisooyinkii hore aan soo geliyay, talooyinka quruxda badan aad soo bixiseen. Haddana waxaan idinka sugaynaa sidaas si lamida inaa walaasheena Luul Maxamed aad u soo dirtaan fariimo qurux badan iyo sidoo kale commenti ay ku qanci doonto. Dadka badana baa waxay dhahaan maxay kuugu dhacda arrintaas? Wax sidee u dhaceen lama dhahe ee sidee looga dhaqmaa ayaa la dhahaa. Walaalayaal qisadeena waa intaas. Waxaa la idinka codsanayaa inaad qaybta commentiga taladiina quruxda badan aad ku soo gudbisaan. Sidaas iyo waxaa idinkaga tegayaa muuqaalka xigo inta aan ku kulmayno nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.